الله الرحمن الرحيم قدوميها أقل كسرة وزيرك عدالة وزيرك جناعسي ورشدها حبناها قولها وزير ذا حبناها الدوانة ذا هير قرن قولها شعبك أي سنة كبا تليها عيدا كأسلوب الصوماليات سريقود بشير محمد جامع تلياشا عيدا ك بوليسكا iyo مسؤولين kale badda iyo xooga dalka socda dhammaan marti sharafta xeer ilaaliyaha guud ee qaranka taliyaha ciidanka asluubta ee dalka walaalaha Suudaan dhammaan ururada bulshada bahda saxaafadda kooxda onkad ee fanka wacyigelinta iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo ku hadlaya magaca shacabka gobolka Banaadir ugu horreyntii waxaan jeclaan lahaa inaan u hambaliyeeyo taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo 49 sano jirsaday ee dabaaldegan oo tan iyo maanta iyo caawana ee runtii ka muuqato horumarka ballaaran ee ciidanka asluubta ku talaabsanay maalinta ka dambaysa iyadoo waliba ay maanta astaan weyn noo tahay in Ismaaciil Axmed Ismaaciil oo taliyihii hore ciidanka asluubtana uu goobjoog ka yahay halkan General Bashir runtii aniga aad iyo aad baan u aqaan muddana qurbaha waa soo wada joognay 16 sano ka horna waxaan ku jirnay dadkii u ololeynay dalkan in dib loogu soo laabto horumar barwaaqo si uu gaaro amnigiisa nabadayntana qurbajoogtu ay kaalin ku leedahay muhiimna tahay in dalkan lagu soo laabto waxaan xasuustaa 16 sano ka hor 2003 inaan tagnay dalka Kenya oo markaas shirkii uu ka socday dowladdii lagu soo dhisay Cabdullaahi Yuusuf oo ujeedadu ahayd markaas hogaamiye kooxeedkii iyo shirkii nabadeynta iyo wada tashiga socday bal in qurbajoogtana ay kaalintooda ka qaadato intaas ka sokow muddadaas 16 sanana dalka ayuu joogay General Bashir oo runtii annagana hormuud noogu noqday inaan dalkii ku soo laabanno intaas uu joogayna xilal kala duwan oo soo qabtay waa dadka farakutiriska oo runtii u baahan dalkan muddadii uu xilkan hayayna iyo markuu ku soo laabtayba horumarka ballaaran ciidanka asluubta sameeyana waa mid aan marqaati u baahnayn oo runtii aan rabo inaan si kal iyo laab uga mahadceliyo General Bashir dadaalkaas intaas muddada ku jiray waxaan ku leenahay ciidanka asluubta iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto ku ogyihiin waxaan rajaynaynaa in intaan ka badanna ay ciidanku bashbashi baraare ku gaari doonaan sanadka dambe oo waliba konton jirsada oo noqon doono sanad aad iyo aad muhiim noogu ah bulshada Soomaaliyeed meel walba joogno intaas ka sokow waxaan kaloo rabaa inaan taliyaha ciidanka asluubta ku ammaano sida runtii ahmiyadda u siiyey maxaabiista Soomaaliyeed oo runtii ugu fikirinayay muwaadiniin Soomaaliyeed loo baahan yahay markay xabsiga dhamaystaan bulshadoodii inay la falgalaan sidaas daraadeedna tababarro ha noqoto iskuul ha noqoto waxbarasho kale ha noqoto oo farsamada gacanta ah iyo waliba isagoo u sameeyay warshado iyo hal abuur ay ku soo bandhigaan burhaantooda annagoo hubno dadkaas maxaabiisteennana ay noqon doonaan kuwo bulshadan u adeegta intaas ka sokow dib u habeynta ciidanka dhisidii xabsigii ugu weynaa Afrika oo soo aragnay maanta iyo dhammaan dadaalada socdana waa kuwa runtii aan ku ammaanayna ciidanka asluubta Soomaaliyeed meel walba joogaan aan leenahay ilaahay ajar iyo xasanaha idinka siiyo ummadda Soomaaliyeedna waxaan rajaynaynaa in inta dhimanna aad u qaban doontaan waa ogahay Bashir inuu ku raad joogo Ismaaciil Axmed Ismaaciil doorkii asluubta ay ku lahaayeen dalka ha noqoto beerihii ha noqoto warshadihii ha noqoto horumarka dhaqaalaha dalka taasna waxaan hubaa in aan ku raad joogno intaas ka sokow waxaan rabaa iyadana inaan bulshada ugu bogaadino 2 sano tani markii la doortay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha shacabka in ummadda Soomaaliyeed runtii ay arkeen madax qaran oo u damqanaysa ka naxaysa u istaagaysa taasoo aan ka dareemi karno maxaabiisteena gudaha joogtay sida loo daryeelayo iyo kuwii dibadaha joogay sidii loogu soo celiyay dalkooda oo ay maanta ciidoodii ay joogaan taasna waxay ku timid dadaalka ah in muwaadiniinta Soomaaliyeed sharafkoodii karaamadooda wax soo celin kara waxay tahay waa madax qaran iyo shacab oo isla socda heesihii waxaa onkooda noo soo bandhigeen ay ku jirtay midnimadu waa wax muhiim ah waa wax shay qaali ah loo baahan yahay bulshadana
sideedaba waa mid la rabo inay isku tashato sidaas daraadeed waxaan leeyahay mar kale hambalyo waxaan leenahay ciidanka asluubta Soomaaliyeed ha guuleysto ha jiro ha waaro wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh